كنت وعن نفسي هرتان تاون شيء كسر هذا كان في الوقت أنت واحد شو قاعد تكتلياني وحلت شو قاعد ويلكم من اللي يرتبط تكتلياني قلت مدة دقنا عبد الرحمن لا عبد الرحمن كسر كان كلام ودو هي أدبل ما سنتها أديك يو دمادياش كان كلامدكو كسر هذا أخبار عنه يكسين دونه ودنك إيطاليا ينولشيس أدبل ما سنتها سيدي شكت عبد الرحمن ودك إني متابع دقنت هاي مدام ودن كانوا جاي ودن يوروبتا بس يوروبتا كلا أنا أعرف الفنان ودك سعوديين والعبد الرحمن واحد كورة ترى ودك أنت تكتب حاجة كلها يابنا ودن كانوا نولشيس ونولل كل الدول آديات قفقة مركو كعسبية هي أما مركو إن بدن شو ولا كل ما يقعدون آدو فرق بدن ودن كواحد يويا بدنا أو عن مسكح كبر حينين مركي ليسي شرعي بحثنمدا أو أصيلة مركي ليسي أو شنب قالوا يورو أنت اللي يرعي اللي أدنكوا بلارين يسكت صدق تاسع يويا بدنا إلا هذا أنا اللي جنجي أوكي marka waxaan noqonaysaa wadankan ma aha sida Yurub kala wada furfuran oo yani dadka wadamadan isku soo laabto oo kale soo dhaweeyay may taas aad ugu duwan Yurub kaleeto oo wadanku xaq nidaamka qaxootiga wuxuu isticmaalaa nidaam kale oo ka duwan Yurub kaleeto tusaalahan Scandinavian-ka iyo German-ka iyo Faransiiska nidaam ka duwan bay isticmaalaan qofka muddo ayay noloshiisa daryeelaan muddadaas kaliya markay ku dhamaato 3 sano ugu badan 2 sano iyo badh 1 sano iyo badh iyo qofka qaabkay hayaan ay qolada community ay ku hayaan bay ku xiran tahay nidaamka gooniga isticmaalaan oo qofka qaxootigiisa abadiina joogtiina waa ma caawiyo waa hawshiisa noloshiisa oo ma wato wad ma santahay su'aasha kale ku weydiinay walaal Cabdiraxmaan waxa weeye niyow dhalinyarta wadanka ku soo laabata inta kale Yurubta hore kala diidmada ka soo qaadata yani sidee buu wadanku soo dhaweeyaa ma si fiican buu soo dhaweeyaa yani hore noloshooda ma uga bilaabaa mise waxa ku qaadataa la qabsi iyo muddo badan soo wareegalistaan أنا واحد كمدها dhalinyartii wadankan ka tagtay oo Yurubta kaleeto aaday muddo soo wareegaysay wadana far badan meengeliyo tilmo iyo nolol karaasatay ayaan kamid ahaa ana dib u soo laabtay dhalinyartaas ku soo noqonayso waxaan kula talin lahaa qof walba meeshii markii ugu horeysay Talyaani aad soo gashay aad ka soo gashay ku noqo tuuladii iyo degmadii iyo jasiiradii sharciga xilligii faraha laga qaaday aad ka soo degtay halkii ku noqo sidoo dhaqsaha badan sharciga ku sinayaan nolosha Talyaaniguna tii hore ee aan ogeynay sanadada 2015 iyo 14 iyo 13 iyo wixii uu ka duwan yahay nidaamka nolosha iyo nidaamka shaqada iyo nidaamka guriyuhuba way ka duwan yihiin sidii hore wuuna ka fiican yahay caqabadana way iska jiri karaan aad baa mas maxaa sidee baa ugu fiican ama gobolkee baa ugu fiican wadanka maadaama uu gobol badan ka kooban yahay gobolkee baa ugu fiican xagga qofku in sharci hore ka helo kale aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan dhihi lahaa qofku markuu wadanka uu dib ugu soo noqdo aniga shakhsiyan ahaan waxaan dhihi lahaa wajiga koowaad ee uu sharci ka raadsanayo ha ka dhigto meesha la dhaho Sicilia iyo nawaaxiga magaalada Genova iyo Rome oo ah caasimadda wadanka haddii la ay soo raacdaan magaalada Bari afarta goobood baa hadda ugu roon waqtigan xaaliga siiba Sicilia oo jasiiradan ugu weyn oo inta badan ay Soomaalidu joogaan ahna dad waxoogaa yar furfuran oo Talyaaniga kale ka duwan halkaas aan dhihi lahaa qofku aad afarta meelood Milan Roma Bari meesha la dhaho Sicilia iyo Genova afarta meelood baa ugu roon waqtigan xaaliga waxay noqonayaan marka magaalooyinka ugu fudud xagga qofku sharciga keeni karo oo sharci keeni karo marka uu soo laabto su'aashan ka yar dhaxgale yani boqolay Soomaalida meeqay ka noqon karaan si sharciga ku helaan من بقول كيف كنتم بقول كيف تطوعتن بقول لي ميقين ممكن أبيك ولا تبيك تويس تلك الصومالي ده وتلك الصومالي عشان يشم قفك الصومالي هدو الصومالي هي أو بقول كيف سجاشن يشن أما فرهيش أما يوسف فرلهان هدو قفك يجرو تاكل شرع كسوة ويماد يهدو بطة كسوة يهدو إرك كسوة هدو ومن قليل وديسو ودن كان شرعي وكلي marka waxay noqonaysaa qofka Soomaaliga xataa haduu afka dhaqdhaqaaq sharci waa ka heli karaa waa heliya turjumaanka bahal su'aal la weydiinayo qofka turjumaanka balaliyo qofka inuu Suudaani iyo inuu Eritrean yahay naga hubi haduu Soomaali yahay marka ugu yartaa aysan waxba ku siinin sharci 2 sano ay hadda bixiyaan marka ugu badana sharci 5 sano oo asiila ay bixiyaan laakiin sharciyan kuma dhigin hadda Soomaalida 100% waa ka huba marka waxay noqonaysaa dadka Soomaalida wadankan waa u fiican yahay Yurubta kale waa uga fiican yahay xagga sharciyada حق الشرع بحنته Soomaalida Yurub ugu fiican yahay waana wadanka waa dhinaca Soomaalida marka la fiiriyo maadaama ay taariikh fog inaga dhaxayso waxa diga warta Cabdiraxmaan wadankan kullu soo sheegtay dhalinyaro badan oo xoogaa degan yani xiriirka ka dhaxeeya iyaga dawladda Soomaaliya safaaradda Rome tahay iyo dhalinyarta wadankan oo kale maxay noqon kartaa ma isku xidhan yihiin yani dad ma yihiin inta badan kulba wixii dhacay iska garab qabta mise waa
وكل حري بدون كرتا سفارة الصوماليات أو صديق جذو وياهي مجال روما يو طليانة الصومالية ودن ككونو كونتاكتي أنا أوجهي أو وقت الحالي أكيد حياة موجودة أو أوروبا هي أداة الصوماليات أو دسان أو سفارة الله شقية أو حالات الطليانة ودن ككونو المدام أي بقولكيو سديتني شن أي قيسس أي سنهاين الطليانة إسكابولا أيين متشر أنت أوجهي لكن سفارة qofka Soomaaliga ah haduu safaarada wax u doonto oo ay dana ka soo gasho si qurux badan ba loogu dhameeyay aadna waa loo caawiyo safaaraduna waa safaarad u dhisan Soomaalida oo dhan oo ana caawiso qof walba oo wax ay dana ka soo galaan la sheegay waxa jirta Cabdiraxmaan dhalinyaro Soomaalida xabsiyada ku jirta wadanka in muddo ay qaar hadda galaba waa jiraan yani xagee baa dhaqdhaqaaq looga sameyn karaa oo dhalinyarta maanta hadii xabsiga laga soo dayay sidee baa ugu fudud loo sameyn karaa kulata intaan anigu ogsoonahay hal ururaha jira oo la yiraahdo Somali Fratello oo aan u maleeyo xaruntiisu tahay magaalada Milano mise Roma midkood ururkaas sida aan maqlay waxyaabo fara badan oo dhalinyarta u dan ah oo kuwa xabsiyada ku jira kuwa dhibaataysan kuwa in la celiyo raba waxaas ka shaqeeyaan oo aad bay ay u caawiyaan dhalinyarta laakiin dhalinyar aad u fara badan oo xabsiyada ku jirta si waxa u badnaato magaalada la dhaho Napoli xabsiyadeeda kala duwan Soomaali fara badan oo ku jirto wax ururaha u dhaqaaqo dhinaca safaarada ku tacalluqo oo xagga safaarada xidhiidh la oo ogahay ma jiro urur Soomaalida isku xidhan oo markii laga reebo ururkaas Somali Fratello oo urur qadiima markii laga reebo ma jiro community jahliyadeed oo Soomaalida leedahay oo nidaamsan sida aan maqlay baaribay wax yar ka jira laakiin ma nidaamsan sida aan maqlay laakiin anigu intaan ogahay halka urur baa jira aad iyo aad baa mahadsantahay السلام عليكم